السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر هذا عشر كني English grammar lesson 1. عشر كمان تقول كوابن هاي 10 أساسا أو English grammar وككوابن كلمة دهن أو grammar هان English كنا قلنا pronouns وآدي مهمين لو قادو حنا كترتيب دونا أفسومالي كلمة دوهر سوا I, you, he, she, we, they, it. I mean, we can put to Afsoomaali. I, aniga, you, adiga, he, isaga, she, iyada, we, inaga oo dhan, they, iyaga oo dad gaar ah, it oo loo isticmaalo waxaan noolayn. It is a book, it is a car, waa gaari, waa book, waa qalin, loo isticmaalo sidaa. haddana waxaynu eegi doonaa 3 kalmadood oo raaca marka sentence laga sameynayo kelmadahan 3 kalmadood oo aynu eegi doono bogga dambe 3 kalmadood oo ah am, are, is 3 kalmadood grammar ahaan waxa lagu yiraahdaa verb to be marka waxay raacaan pronouns kay raacaan oo ka daba yimaadaan marka la sameynayo jumladan ama sentence dan marka haddana waxaynu eegi doonaa qaybta dambe casharka oo muhiimka ah kalmadihii pronounska iyo verb to be ga oo sentence pronouns plus verb to be saddexdii kalmadood verb to be waa kuwan imankana iyagiyo waxaan arki doonaa sentence ah marka aynu af Soomaali ku turjino jumlayaashan I am student anigu arday baan ahay you are a teacher adigu macallin baad tahay he is a doctor isagu waa dhakhtar she is a nurse iyadu waa nurse they are workers iyagu waa shaqaale we are students waxaanu nahay arday it is a book kelmadda u dambaysa waxay qaadataa wixii aan noolayn so it is a book waa bookani marka waxaad arki doontaa kalmadihii pronounska ahaa iyo verb to be skii marka I waxay qaadataa amta you they we-na waxay qaadanayaan arta he she iyo itna istay qaadanayaan casharka maanta intaas inoogu kooban yahay intaynu ku kalmi doonaa casharkeena dambe thank you